maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ayaa dacwadda badda Soomaaliya ee ay Kenya doonayso dhageysan doonta 9 bisha Sebtembar ee sanadkan waxaana dacwaddu socon doontaa ilaa iyo 13 bisha Sebtembar. maxkamadda ayaa talaadii waxay shaacisay jadwalka dhageysiga dacwadda waxaana The Hague tagi doona ergo ka kala socota Soomaaliya iyo Kenya kuwaas oo ka qayb galaya dooda labada dal. sanadkii 2014 ayaa dawladda Soomaaliya waxa ay maxkamadda caalamiga ah ee Hague geysay dacwadda ka dhanka ah Kenya oo si xadgudub iyo awood marorsi ah ku doonaysa biyaha kheyraadku dhex ceegaago ee Soomaaliya. Kenya ayaa ku dooday in maxkamaddu aysan awood u lahayn inay dacwadda qaado balse Soomaaliya ayaa ku guuleysatay doodii ku saabsaneyd awoodda maxkamadda waxaana maxkamaddu ay goor dambe xukuntay inay awood u leedahay inay dacwadda dhageysato. wixii ka dambeeyay 13 Sebtembar ayaa maxkamadda Hague waxa ay shaaci doontaa xilliga ay gaari doonto go'aanka kama dambaysta ah ee xukunka iyo haddii aan loo baahan fadhiyo dheeri ah oo dacwadda lagu dhageysto. sida ku xusan jadwalka shalay ay sii daysay maxkamaddu Soomaaliya ayaa doodeeda maxkamadda ka horjeedin doonta maalinta ugu horeysa fadhiga maxkamadda ee 9 bisha Sebtembar inta u dhaxaysa 10 barqanimo ilaa iyo 4 galabnimo waxaana laga nasan doonaa maalintaas 1 duhurnimo ilaa iyo 3 galabnimo. Kenya ayaa maalin nasiinaha kadib waxa ay jawaabteeda bixi doontaa 11 Sebtembar. Soomaaliya ayaa haddana ku soo laaban doonta 12 Sebtembar maalin Khamiis ah inta u dhaxaysa 3 galabnimo iyo 6 maqribnimo ayayna socon doontaa dawladda Soomaaliya jawaabta ay jeedinayso markeeda labaad ama maalinta labaad. maalinta ugu dambaysa ee 13 Sebtembar ayaa dawladda Kenya waxa ay heli doontaa fursad la midda Soomaaliya. dadka Soomaaliyeed ayaa aaminsan inay heli doonaan hantidooda ay Kenya muranka gelisay dawladda uu hogaamiyo madaxweyne Farmaajo ayaana looga fadhiyaa inay bixiso dadaal ka badan ama la mid ah kii ay dacwadda badda ku bixisay dawladdii ka horreysay ee uu hogaaminayay Xasan Sheekh Maxamuud.